kulanti wacan oo wanaagsan daawade halkan waa nuxurka haddii aad ku cusub tahay ku soo biirow ka mid noqo daawadayaasha sida tooska ugu xiran xogaha warbixinadii dhacdooyinka halkan aan idinkugu soo gudbino hadduu alweyne u qadaro waxyaabaha daawan doontaan inaan idinkugu soo gudbin doono barnaamij wareedkan waxaa ka mid noqon doona maxaa ka jira wararka sheegaya in madaxweyne Farmaajo uu ka hari doono u tartamida kursiga madaxweynaha Soomaaliya iyo sidii dib ugu soo laaban lahaa waxaan idin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin xasaasi ah oo arrimaha ku gadaaman waanu ku bidhaamin doonaa barnaamij wareedkan iyo guux xooggan oo ka jira magaalada caasimadda Muqdisho iyo guud ahaan Soomaaliya kuwaasi oo baraha bulshada ku xiriirto siyaabo kala duwan looga falceliyay Axmed Karaash waxa uu weerar afka ku qaaday Saciid Cabdillaahi Deni waxaan idin soo gudbin doonaa xogo iyo dhacdooyin arrimaha ku gadaaman oo aanu ku bidhaamin doonaa barnaamij wareedkan hadduu alweyne raalli uu ka noqdo daawade saaxiib sidoo kale waxyaabaha kale ee aad ku daawan doontaan barnaamij wareedkan waxaa ka mid noqon doona waan idinkugu soo gudbin doonaa barnaamij wareedkan guusha Sheekh Aadan Madoobe waxay ka dhigan tahay ilaa iyo 5 qodob ayaan eegi doonaa waanu ku jeexi doonaa barnaamij wareedkan qodobada iyo kuwa kale ayaa daawan doontaan halkan waa nuxurka soo dhawaada ka mid noqda oo sidoo kalena la wadaaga saaxiibadiina xogaha warbixinada iyo sidoo kale dhacdooyinka aynu halkan idinkugu baahino daawade saaxiib aynu ku bilaawno haddaba waxaan iga xasuusinaa marka hore inaad like gareyso warbixintan adigoo sidoo kale share gareynaya aarahdaadii waxay kula tahayna ka dhiibanaya war weyn ayaa magaalada ku jira buuq xooggan ayaa socda hadal heem ballaaran ayuu markaasi dhaliyay waxaa siyaabo kala duwan looga falcelinayaa dadku qaarkiina la yaab u arkaan war si weyn suuqa ugu baahay run ahaanshihiisii sax ahaanshihiisa aan xaqiijin karaynin nuxurka haddii aynu nahay oo ah in madaxweynaha Soomaaliya ee sharciyada uu ka ilaaday ama waqtigu ka ilaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo oo la sheegayo in uu tartanka ka hari doono sidii Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo uu iminkaba doorashada markaasi go'aan ka gaadhay doorashada guddoonka aqalka sare iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa niyad jab xoogan ku riday kooxda nabad iyo nolol oo uu hormuud ku yahay madaxweynaha mudxiliidkiisa sharciga ah uu dhamaaday ee Maxamed Cabdillaahi Farmaajo iminkana si toos u noqday madaxweynihii hore ee Soomaaliya guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa xalay iskaga haray doorashada guddoonka golaha shacabka kadib markii uu ogaaday inaan loo dooran doonin uuna guuldaro kala kulmayo xildhibaan Xasan Firimbi oo ka mid ah xildhibaanada mucaaridka ku ahaa madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisa ayaa sheegay in isbedel markaasi uu guuleystay ayna fashilmeen sidii uu markaasi tilmaamay nidaamkii dalka ka talinayay 5 sano ee la soo dhaafay waxa uu sheegay xildhibaanka Xasan Firimbi doorashadii Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe ay muujinayso tabardarida kooxda nabad iyo nolol oo sheegay in dalka fashil u horseedeen 5 sano ee la soo dhaafay waa sida uu sheegay xildhibaan Xasan Firimbi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto deegaanada maamulkaasi Jubbaland xildhibaan Xasan Firimbi ayaa tilmaamay inuu filayo in madaxweyne Farmaajo isaga hari doono doorashada sida uu sameeyay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan waxaana uu xusay inuu niyad jabsan yahay Farmaajo aadna u liidato rajadiisa sida uu hadalku u dhigay xildhibaan Xasan Firimbi oo isagu markaasi arrimahaasi ka hadlayay doorashada guddoonka golaha aqalka sare iyo guddoomiyaha golaha shacabka ayaa sii xumaysay rajada uu madaxweyne Farmaajo iyo kooxdiisu ay ka qabeen in mar kale ku soo laabtaan xafiiska looga arrimiyo Soomaaliya waxaana dadka siyaasadda falanqeeya saadalinayaan in Farmaajo doorashada uu markaasi ka tanaasulayo si kasta oo xaaladda noqoto waxa aad u sii xoogeysanaya warka ku gadaaman arrintan maadaama ay siyaabo kala duwan social media ama baraha bulshadu dadku wax ku daabaca ay sheegayaan xogahan soo baxaya tiyo ay jirto in wararkan ay markaasi beenoobi karayaan sabab la xiriira in wali sax ahaanshiyaha warkaasi aan laga helin musharaxii markaasi doodda ay dul hooganayso ee Farmaajo si kasta oo xaaladda noqoto dhabarjabka ugu weyn ee kooxda Farmaajo ay wajahaysa ayaa ah in hal xubin ay ku yeelan waayeen guddoomiye ku-xigeenka iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare waxay xalayta haddana lumiyeen guddoomiyaha golaha shacabka tartan 5 saacadood socday oo ay markaasi ku hardameen kooxda Villa Soomaaliya waxa u midoobay mucaaridka waxaana laga tuuray markaasi Xasan Eelay
oo isagu markaasi ahaa musharaxii villa Soomaaliya oo ay dhaafin kari waayeen markaasi inay ka hormariyaan musharax Aadan Madoobe oo isagu markaasi si aqlabiyada ugu guuleystay kursiga guddoonka golaha shacabka. waxay xalayta ahayd markaasi fagaarayaasha siyaasadda la isku bartay oo la isku arkay maadaama xubno dhowr ah oo markaasi ku gadaaman doorashadu ay xalaytu markaasi fagaarayaashu ku arkeen amaba isku arkeen waana kuwa mucaaridka iyo markaasi xubnaha villa Soomaaliya oo iyagu markaasi doonayay inay tijaabiyaan awoodda mucaaridka halka mucaaridkan oo markaasi tijaabiyayba awooddii xubnaha markaasi villa Soomaaliya. Crash waxa uu markaasi gaadhay Qardho oo uu markaasi si weyn lagu soo dhaweeyay. magaalada Qardho waa markaasi goobta madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni uu markaasi ka soo jeedo. waa magaaladii Deni waxaa gaaray madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi Puntland oo awooddii kol sii horeysa sheegay inuu kala wareegay Deni oo ay Deni ishayaan. si kastoo xaaladda noqoto kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka dowladda Puntland Axmed Cilmi Cismaan Crash ayaa lagu soo dhaweeyay si diiran magaalada Qardho ee xarunta gobolkaasi Karkar. maamulka gobolka Karkar kan degmada Qardho iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa kusimaha madaxweynaha ku soo dhaweeyay beerta boqorka. kusimaha madaxweynaha ahna madaxweyne ku-xigeenka ayaa intuu ku sugan yahay magaalada Qardho waxa uu kulamo la yeelan doonaa maamulka gobolka kan degmada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada oo markaasi isagu halkaasi ku sameyn doono kulamo duceedyo markaasi la gaarisan doono arrimo dhowr ah. Axmed Crash ayaa haddaba hadal u muuqday markaasi mid uu ku duray maanta madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. waxa uu safar ku gaaray magaalada Qardho waxaana si weyn lagu soo dhaweeyay halkaasi. maanta waxaan safar shaqo ku soo gaadhay degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. waan u mahad celinayaa maamulka gobolka kan degmada, nabadoonnada, saraakiisha amniga, siyaasiyiinta, haweenka, dhalinyarada, bahda warbaahinta, ururada bulshada iyo cid kasta oo ka qayb qaadatay soo dhaweyntii diiraneed aynu markaasi ayuu yiri Crash ayaa waxa uu markaasi hadal ku diray Siciid Cabdullaahi Deni isagoo soo hadal qaaday ama ku qabsaday Axmed Crash markii uu gaaray Qardho taasi oo dadku qaar ay markaasi ku hibtaa madaxweyne Deni ay markaasi ka caroodeen. si kastoo xaaladda noqoto Axmed Crash ayaa markaasi si weyn u dhalisan siyaasadaha madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni. guusha Sheekh Aadan Madoobe maxay ka dhigan tahay haddaba 6 qodob ayaan eegi doonaa iyo faallo oo uu markaasi qoray mid ka mid ah markaasi saxafiyiinta Soomaaliyeed. marka hore waa mirihii halganka loo galay dib u soo nooleynta xorriyadda shakhsiga ah iyo tan baarlamaanka oo 5 sano la soo dhaafay dhaawac loo geystay. Sheekh Aadan Madoobe wuxuu ka mid ahaa mucaaridka aan maalinna madaxa u raaricin farmaajo iyo xukunkiisa waana midda markaasi ku muteystay taageerada kuwa u sacabtumayay in baarlamaanka la gumeeyo. qaarkood waa ku dhiiran waayeen inay tartanka soo galaan, qaarkoodna farmaajo ayaaba golaha ka hor istaagay. 2 mucaaridka waxay uga dhigan tahay in jidka kaliya ee guusha lagu gaari karo uu yahay iskaashi iyo midnimo. guushan waxaa markaasi iska kaashaday midowga musharaxiinta maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, xildhibaanada xorta ah oo ay ku jiraan musharaxiintii ku haray wareegga koowaad. maamulka Koonfur Galbeed ee uu hogaamiyo madaxweyne Laftagreen waxaa soo gaartay jog culus marka laga soo tago sidii uu xukunka ku yimid Laftagreen inuu markaasi xukun ka hayay una markaasi dhaqmin hogaamiye bulsho oo u baahan in markaasi laga xoreeyo shabaab, in la heshiisiyo iyada dhexdeeda, la dhiso hay'ado maamul iyo ciidan la wada leeyahay. ugu dambeyntiina wuxuu hormuud ka ahaa boobka doorashada dadban. Laftagreen wuxuu doorbiday inuu farmaajo Fahad kula shirkoodo deegaanka Koonfur Galbeed. dhacdadii shalayto markaasi la ku hor istaagay doorashada golaha shacabka oo xayiraad markaasi soo saartay xubno dhowr ah, waxaana sidoo kale ay markaasi xayirneed ilaa iyo xalayta fiidkii. waxayna tusaale u tahay ayaaba markaasi darada Laftagreen oo uu natiijadeeda markaasi hayo saakay. 4 waa guul u soo hoyatay reer Koonfur Galbeed oo u baahnaa hoggaan iyagoo markaasi heshiisiyo bulshooyinka la nool iyo kuwa la deriska ah isku soo duma hoggaanka siyaasadeed iyo midka dhaqan doorna ay markaasi ku yeeshaan doorashada madaxweynaha soo socda iyo tan Koonfur Galbeed oo ay ku hartay 6 bilood.
shan ugu dambeyn guusha Sheekh Aadan Madoobe waxay uga dhigan tahay farmaajo iyo markaasi wixii ku lug harayba inay gartaan shacabka Soomaaliyeed inaan la maquulin karin inay bartaan in shacabka Soomaaliyeed inaan la maquulin karin intaanay qarash kale iyo codad kale sii abuurin inay ku noqdaan xisaabihii 5 sano imisa ayaa Soomaaliya uga qasaartay muddo kororsiga sharci darrada ahaa imisa Soomaaliya uga luntay xumeynta xiriirka caalamiga ah haddii xisaabtaasi ay faa'iido uga soo baxdo horay ha u sii socdo haddiise khasaaraha ay geysteen uu qiimeysan yahay si nabadgelyo ah ayay xilka ku wareejinayaan ayuu yiraahday si kastoo xaaladda noqoto warbixintan waxaa qoray wariye Golfo Yare oo isagu markaasi faaladan kaga qoray arinta ku gadaaman Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe iyo guushiisa goordhow waxaa la fuguri doonaa doorashada gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha aqalka sare ama markaas aqalka hoose ee golaha shacabka nabadina saaxiibayaal